Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada casharkeeni koowaad ee luqadda HTML-ka. Casharkeeni koowaad wuxuu noqonayaa inaynu maanta barano muxuu ahaayey hordhaca HTML-ka. Waxaan rabay inaynu ku bilowno bal marka hore inaynu fahanno introduction-ka HTML-ka, inaynu fahanno ama aynu kaga hadalno sidee bay website-dadu u shaqeeyaan, sidoo kale muxuu yahay horta web page. Bal inaynu labadaa fahanno. Haddaynu soo horreysiino su-aasha muxuu ahaayey sidee website-dadu u shaqeeyaan ama siduu website-ku u shaqeeyaan. Horta websiteska waxay u shaqeeyaan wax la yidhaahdo client and server architecture, iyagoo ku shaqeynaya ama ku dhisan luuqad ay iska leedahay shirkadda magaceeda laga soo gaabiyo www oo ah World Wide Web Consortium ama W3 company-na waa la yidhaahdaa. Sidaynu halkanba ku arkayno, website-ku wuxuu u shaqeynayaa qaab dhismeedkaynu halkan ku arkayno oo ah wax loo yaqaana client machine iyo wax loo yaqaana muxuu ahaayey server machine. Haddaynu client machine-ka ku horeyno, client machine-ku wuxuu noqon karaa laptop-kaaga, wuxuu noqon karaa mobile-kaaga, wuxuu noqon karaa iPad-kaad isticmaalaysid, wuxuu noqon karaa desktop computer, wixii noocaasa ee uu ku jiro software-rada loo yaqaano ama software applications-ka loo yaqaano web browsers sida Google Chrome, Firefox, Explorer, way badan yihiin. Laakiin haddaynu tusaale ka soo qaadana ay kuwaasi ka mid yihiin ayuunbaa ku jira. Haddaynu sharaxno muxuu yahay website-ka ama server muxuu yahay. Server sidiisa haddaynu u sharaxno, like sida sawirkan ku arkaysaan, waa machine kaasoo ay shaqadiisu tahay inuu hosti gareeyo ama inay ku jiraan ama la dhex dhigo oo uu kaydiyo hayo faylasha ama resource-ka uu website-ku ka kooban yahay, isagoo machine-ka isagana lagu shubayo software loo yaqaano ama software applications-ka loo yaqaano web server software, oo kuwa u caansana maanta website-dada aynu isticmaalana ay ku shaqeynayaan ay yihiin ka loo yaqaano IIS oo shirkadda Microsoft ay iska leedahay, iyo ka loo yaqaano Apache HTTP server oo isagana ay iska leeyahay ama uu leeyahay company-ga la yidhaahdo Apache Foundation Organization. Muxuu ahaayey waa kaas. Sida kalood halkan ku arkaysaan, client-ka iyo server-ka waxaa u dhexeeya sidaad arkaysaanba xarfo lasoo gaabiyey oo ah HTTP. Kulle waxaynu iska nahay dad aada u isticmaala muxuu ahaayey web technology-ga iyo muxuu ahaayey khaasatan social application websites-ka like Facebook, Twitter. Waxyaabahan markaad galaysaan ama Google ama YouTube markaad galaysaan, haddaad u fiirsataan xagga sare waxaa loo yaqaana domain-ka ama URL-ka, waxaa ku qoran www-da. intaana www soo gaarin waxaa ka horeeya ama uu ku bilaabaa waa maxay http:// kadibna maxay www. deetana magacii ama domain ama DNS name-kii ama domain name-kii. waxaa loo yaqaanaa protocol ama hypertext transfer protocol, waana waxa ay websitesku ku shaqeeyaan ama protocolka ay isticmaalaan si client-ka iyo server-ku ay u sameeyaan inay isdhaafsan karaan macluumaadka ama xogta, taasi u sahlaysa in client-ku uu codsi u diri karo maxay hayday HTTP request uu u diri karo server-ka, server-kuna uu heli karo codsigii ka yimi client-ka, kadibna uu analyze garayn karo, kadibna markuu ogaado wixii uu qofka client-ki soo codsaday ama codsigii client-ka ka yimi markuu fahmo, inuu jawaabtii usoo diro oo uu iyadana ugu soo dirayo maxay protocol lamid oo ah maxay HTTP response. Clients-ku markay dirayaan codsiga noocana waxay isticmaalaan wax loo yaqaano methods ama HTTP method, kaasoo ah maxay get method ama post method. Taas waa intaas. Haddaynu su-aashan kale labaad aynu u nimaadno ah muxuu yahay web page. Web pages-ku wuxuu ka kooban yahay text files kaasoo magaciisa loo yaqaano maxay HTML. Haddaba HTML oo maxaa tahay ama maxaa laga soo gaabiyey? HTML-ka waxaa laga soo gaabiyey Hypertext Markup Language. luuqadaas oo loo qaybiyo laba qaybood, oo qaybta koowaad la yidhaahdo maxay document structure ama semantic markup language,
iyo qaybta labaad oo la yidhaahdo formatting ama presentation markup language. labadan luuqadood maxay kala yihiin? qaybta hore HTML-ku wuxuu ka kooban yahay wax la yidhaahdo tags ama elements, kaasaa loo yaqaanaa maxay document structure, ama HTML-ku wuxuu qabtaa website-ka maxay structure-ka ama qaab dhismeedka. Formatting-ku ama presentation markup-ku halku ka qabto qurxinta website-ka ama quruxda website-ka, waana luuqadda ah ama text file-ka loo yaqaano CSS file. So marka wuxuu ka koobnaanayaa labada qaybood oo ah HTML tags iyo muxuu ahaayey CSS properties and value oo ah file-ka qurxinta. Marka waxaan filayaa inaad fahanteen. xagga dambe kaga hadli doonaa maxaa isagoo aada u faahfaahsan ood kala fahmi doontaan muxuu yahay CSS iyo muxuu yahay HTML, laakiin labada qaybood oo qaybsamo waa sidaa. cashirkeennan introduction-kana halkaasaan ku joojinaynaa. waad mahadsantiin.